xaflad lagu daafurayay tartankii sagaalaad ee Quraanka Kariimka ee loogu magac daray Sheekh Umar Faaruq oo ay qabanayso mu'asasada Al-Huda ayaa maanta lagu qabtay garoonka Mandera Stadium. Xafladan oo si sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiinta dowladda ismaamulka Mandera oo uu hogaaminayo Barsaab ku-xigeenka Dr. Ali, qaar ka mid ah xildhibaanada haatan ku jira baarlamaanka oo uu ka mid yahay xildhibaanka Lafey Maxamed Cabdikheer, xildhibaan Cabdisiraad iyo xildhibaankii hore ee bariga Mandera Honorable Qaras iyo wafdi culimo ah oo uu hogaaminayay Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi. Barsaab ku-xigeenka ismaamulka Mandera Dr. Ali ayaana si rasmi ah u daafuray tartanka Quraanka. maanta waa maalin aad farxad u leh, aan aad iyo aad ugu faraxsanahay. Governaga fariin uu soo fariyo maanta wuxuu jeclaan lahaa, aad iyo aad u jeclaan lahaa in uu ka qayb qaato furitaanka xafladan, laakiin arrimo degdeg oo soo baxay daraadood in uu Nairobi aado. sidaa daraadeed ayaa anigoo Nairobi joogo, inkastoon aniga laftayda iskaga imaan lahaa, ayuu haddana iga codsaday meesha asiga joogi lahaa inaan aniga imaada oon dowladda insha Allah aan matala. sidaa daraadeed ayaan u imaaday. markaan arrinta ayada waxaan u malaynayaa governaga waa laga gadoomay. waxaa kale oo ii ballan qaaday oo ii soo sheegay insha Allah maalintii la xiraa arbacada hadday noqoto khamiisba hadday noqoto inuu ka soo qayb qaata oo xiritaanka asagana ka mid noqdo insha Allah. alxamdulillah meeshaan aan hadda fadhina xaflado badan ayaa lagu dhigay. xaflad campaign lagu dhigay oo siyaasa ah, xaflad ambira lagu dhigay, xaflado kale oo noocyo badan lagu dhigay, laakiin tan aan maanta joogno wax ka khayr badan ma jirto. waa xaflad ugu muhiimsan oo ugu khayrka badan. alxamdulillah run ahaantii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay, waana soo dhawaynaynaa. Maxamed Muuse waa gudoomiyaha mu'asasada soo qaban qaabisay tartankan sanadlaha ee ay ku tartamayaan ardayda ismaamulada Garissa iyo Wajir iyo Mandera. waxa uu sheegay in isku darka 36 arday oo ka soo kala jeeda saddexdan ismaamul ay ka qayb galayaan tartankan, kuwaas oo isugu jira wiilal iyo gabdho. waxaynu maanta u fadhinaa oo taariikhdu ay tahay 16 bishii 12aad sanadka 2024 musaabaqadii ay qaban haysay mu'asasatul Huda oo ah musaabaqadii sagaalaad inta mu'asasatul Huda la aasaasay, ah musaabaqadii labaad isu imaatinka Mandera iyo Garissa iyo Wajir tii labaad ka ah. ayaynu maanta u joognaa furitaankeeda. taas ayada ah waxaan leeyahay mu'asasatul Huda sababihii loo aasaasay iyo ujeedkeeda waxay ahayd dhiirigelinta iyo wacyigelinta iyo gaarsiinta Qur'aanka Ilaahay sida ugu sharafta badan ee uu mudan yahay bulshada in loo gaarsiiyo looguna baraarujiyo hadba tabarteeda iyo taagteeda inta ay gaadho. mu'asasatul Huda waxay u taagan tahay isku xirka macallimiinta iyo culimada iyo quraada iyo waxa weeye bulshada ahlu Qur'aanka ee Soomaaliyeed gaar ahaan in waxa weeye isku xirkooda iyo dhiirigelinta Qur'aanka Ilaahay ka shaqeyso. ardayda ka qayb galayaasha waa 36 arday oo saddexda county ka kala socota, 12 Mandera, 12 Wajir, 12 waxaa lagu tartamayaa 30 juz iyo 15 juz biidnillaahi tacaala. culimada hawsha inoo qaban haysa waa 5 culimo halkan fadhiya. guud ahaan marka reer Mandera waxaan leenahay insha Allah tacaala sidii hore aan u soo camiri jiray ha loo soo camiro warka la isgaarsiyo musaabaqadu inay noo furantay. kale culimada goobjooga ka ee xafladda ayaa dhankooda bogaadiyay una mahad celiyay dadkii soo agaasimay tartanka Quraanka. Ilaaha subhanahu wa ta'ala mahad igalada iska leh alihi nicmadan na soo gaarsiiyay, nicmadan weyn in Ilaahay Quraankiisa sida loo sharfo oo loogu imaado mashriq iyo maghrib loogu imaado. culimada waaweyn Ilaahay Quraanka ku sharafay in Mandera imaadaan, Quraan dartiisa imaadaan, takriim ahli Quraan ugu imaadaan, imtixaankooda u imaadaan. alihi nicmadan na soo gaarsiiyay ayaa mahad galad iska leh subhanahu wa ta'ala. culimadaas hogaaminahay oo noo weyn dhammaanayna sheekheena Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi. dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo qayb galay xafladda furitaanka tartanka. waxaan u mahad celinayaa walaalaha halkan ka soo qayb galay
oo ka mid yahay sheekheena oo runtii meel dheer nooga imaaday asagoo ku tilmaaman quraanka ku tilmaaman culimada meel badan ay maaragtay ku takhasustay asagoo quraanka ilaahay ku takhasusay inuu markasta saddexaad nooga imaado wadan fog aad ugu mahadsan yahay walaalaha kale oo halkaan Gaarisa iyo Wajeer iyo Kiure Madero ayagana u diyaarsaday inay quraanka ilaahay kor u qaadaan ay ku tartamaan ayagana oo mahadcelinaya anaga hadaan Al-Huda nahni abaal aan ku qabnaa in idinkina aad nala qaadateen Soomaali waxay tiri 114 naqana ma qarsanaa ku filaaleed marka idinka daba maartay inaa iska qayb gal aan ku isku imaadna oo quraanka ilaahay kor aan u qaadna aad garabna loogu noqoteen anagana abaal aan ku qabnaa khayr Allah yisiiyo waad ku mahadsantiin wala meeshan danta yar oo kaleen oo mar hor u bilaawni oo wali aan kaleenahay ma aha quraanka tartanka ayaa ku hormari doono ma aha hadaf ka horo wali waa meeshuu taagan yahay processkan oo lagu soo tartamaya waxaan ka rajaynaynaa in wax yar quraankan yani kor loogu qaadi oo ilmaha ay soo xifdiyeen laga yaabo ayagoo raba inay ku guuleystaan maaragtay tartankan ugu dambeyn Sheekh Cabdirashiid Sheekh Ali Suufi ayaa ka hadlay munaasabada iyo tartanka sanadlaha ee uu gabjoog u ahaa 3 sano ee dambe yoon rabaa musaabaqadani waxay mumayis ku tahay oo kaga duwan tahay meelo badan baan tagay adduunka oo musaabaqaad ka qayb galay waxbaan ku arkay aan inta kale ku arkin waan idin sheegayaa ku sii dhago si adkeeya musaabaqada saad la socotaan waa tartan waxa la tartansiyaa waa da'yarta weeye da'yarta ayaa la tartansiyaa oo looga jeedo in lagu tashjiiciyo oo lagu dhiirigeliyo marka waxoogay baa jira oo la siinayo jawaa'iz iyo ma garanaysaa abaalgud ah oo sida ay u kala darajo sareeyaan 1 iyo 2 iyo 3 iyo u galeen meel kasta adduunka waa sida laakiin halkan waxaan la yaabay oo mudan in la xuso lagana daydo ana meel kale ku arag runtii markii ikraamka iyo takriimka uu yimaado iyo abaalgudka ay yimaado oo la sheego in wiilka ama gabadha baa darajada keentay waxa abaalgudka ay u heshayna waa lacag inta dhan markii la yiraahdo oo uu qaadan lahaa hadana odayaasha halkan isugu yimid iyo madaxda iyo ma garanaysaa iyo malqabeenkaba iyaguna waxbay ugu daraan waa arin cajiib oo meel kale aan ku arkin yani ana waxaan ku darayaa buu leeyahay intaas aan ku daray kolka waa arin aad iyo aad u wanaagsan oo tashjiic iyo dhiirigelin wanaagsan waxaanan u xusay arinta uu sheegay meel kale kuma arkin حتى عالم كان عربته لعقبه هيستاني أدليدهين أو حبي ليه أديكها كفي عن كم أركن سكسبة ترتن كان أي سوعن دونا 3 maalmood ee soo socda ayay dadweynaha Mandera ay goobjoog ka noqon doonaan halka dadka kale ku sugan gudaha dalka iyo caalamkaba ay si toos kala socon doonaan baraha bulshada